allaha u naxariistay Farxiye Ibraahim Cali oo ahayd haweeney ku ganacsan jirtay taalada Xaawataako oo ku taala agagaarka tiyaatarka qaranka ayaa ku geeriyootay qarax koowaad oo shalay ka dhacay banaanka hore ee xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre. alxamdulillah Farxiye hooyadeeda iyo walaalaheeda u shaqo tagays ruux oo cid ka soo shaqo tagay aheed alxamdulillah shukr caalamiin dadkii u soo shaqaynaysana kallay shalay ayadoo meed haday arkeen waa lamadooda hadana oo indhahooda dhacay laakiin waa xanuun tiro badan ilaahana uu tala saarayna. Farxiyo iyo dhowr gabdhood oo la dhashay ayaa muddo ka badan 8 sano ganacsi fudud ku lahaa gudaha taalada Xaawataako. shukr bil caalamiin dad maxaan nahay shaax iska karsanaaye dib muslim uma wadin annagana waxaan kula ku maalinta shan dad 10 saac habeenimo soo shaqo tagaa ahayn salaado wadaada ka weyn Farxiyo annaga dadna sir isma lahayn dadna oo shalay ku geeriyootay mid ka mid ah laba qarax oo ka dhacay Muqdisho hal sano ka hor. isla qarax ka dhacay tiyaatarka qaranka waxaa ku geeriyooday seegeeda oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda. marxuumada walaasheeda aheed gabdhaha Xaawataako shaax ku kariyay ahayna alxamdulillah shukr bacaan Xaawataako xanuun badan anaga soo gaaray aniga seegay ku waay agoomanan u shaqaysanaaye alxamdulillah shukr bacaalamiin in shalna mucjisadana noo imaaday walaasheeda waa ku dhaawacantay aniga curadeeda 13 jir way ku dhaawacantay walaashay kale way ku dhimatay والله الحمد لله شكرا wax kasta horta waa ilaahay amarka aragti ku sabro ilaahay. iyada oo ku sugan goobteedii shaqo oo uu burbur ka muuqday ayay ii sheegtay in walaasheed ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray qaybta sare ee jirkeeda iyo wadnaha. kulay waxaan gaarigana qarax noogula keenay wadadaan oo ku imaaday gaariga qaldan markii la arkay gaariga muxuu yahay gaariga isla yaabnaba gaariga fiirno anaga qarax bataatan ani waaba ka filanayaba gaariga marka wadada qaldan oo ku imaaday qarax baan ka filanayay wiilashaan dhaxna wiilashaan oo gaarigan qarax waay marka 3 mar 4 mar ku celi aniga waa isku naxwaan iska istaag meesheed gaarigan qarax waay gaariga xabadiya lagu bilaabo woona qarxada walaashay halkaas bir ka gashay bowlaha oo wadnaha waa qaada dhaawaceeda isbitaal diriraagee alxamdulillah rabbil caalamiin ayadoo birta hadii laga saaray bowlahan way u dhimatay dhibaatada halahaas loogu ekaan badan. markasta oo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ay ka dhacaan qaraxyo sababa dhimasho iyo dhaawac taasi ma horseedo in nolosha caadiga ee dadka ay istaagto. waxaa sidoo u shaqeeya goobaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga. salaado oo 3 ka mid ah ehelkeeda ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay tiyaatarka qaranka ee Muqdisho waxay rajo ka qabtaa in ay halkaas ku sii shaqeysato si biilka reerkeeda u sii raadiso. wallaahi alxamdulillah shukr bil caalamiin waxaan irsaaqada ilaaha ka faarqaado meel kale to ka shaqeysana ma naqaano meel kale to aasana ma naqaano kulay bini aadan naf la galshaana naflay haddana mood sugaanahay amar ilaahay hadoo mar kale noogu imaad ilaahan ku aqoonsanayna inaan ka shaqeysanana haddaan min tacsiida ka soo gudubno alxamdulillah shukr bil caalamiin waa rajayna haddii shaqo ka wanaagsan la siiyana oo dawladda Soomaaliya ay anaga ayna tabarucaysan ayna gacan qabanayso maadaama ilmihii dawladda aan nahay maadaama xaas dawladda aan nahay agoon dawladda aan korsanayno alxamdulillah shukr bil caalamiin hadda aniga qof ahaanteeda aan meesha taaganahay 17 qofood u shaqeynaya waxaan uga shaqeynaa turmuuskaas jalmadaas meel kale uga shaqeynayna malaha Farxiyo sidoo kale 18 qofood u shaqeynaysa ee kaligeed u reedeen qof kale meel uga soo bixin hooyadeeda aan xawahaytood ilmo oo walaalaheedu agoon in walaalaheed oo yariis ee hooyadeeda gacan qabanaysa agoon ay ahayd. 21 qof ayaa ku geeriyootay qaraxyo ka dhacay 22 bishan caasimada Soomaaliya. xarakada al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadan. Aweys Maxamuud Jilco, Cable TV, Muqdisho.